Sheekada 28aad ninkii yaraa ee taajirka ahaa. Maalin waxaa Ciise u yimid nin yar oo hogaamiye ahaa, sidoo kalena ahaa taajir. Wuxuu Ciise ku yidhi, Macallinka wanaagsanow, maxaa wanaagsan oo aan sameeyaa si aan jannada u galo? Ciise wuxuu ku yidhi, maxaad aniga iigu yeeraysaa wanaagsanow? Mid keli ah ayaa wanaagsan, kaasina waa Ilaahay. Laakiin haddii aad rabtid inaad jannada gasho, sharciga Ilaahay raac. Ninkii wuxuu Ciise ku yidhi, waa kuwee kuwa aan raacayo? Kadib Ciise ayaa ku yidhi, waxba ha dilin, ha sinaysanin, waxba ha xadin, been ha sheegin, aabbaha iyo hooyadaa baari u noqo, deriskaaga jeclow sida naftaada u jeceshahay oo kale. Ninkii yaraa wuxuu yidhi, waan adeecay sharciga oo dhan ilaa intii aan yaraa, laakiin maxaa kale oo aan sameeyaa? Ciise wuxuu ku yidhi, haddii aad rabto inaad fiicnaato, waxa aad haysato oo dhan iska gad oo masaakiinta sii. Ilaah ayaa jannada kuu dhigi doona wixii aad adduunka ku baxsatay. Kadib kaalay oo aniga i soo raac. Markii ninkii yaraa maqlay warkaas, aad ayuu u murugooday, maxaa yeelay hantiile ayuu ahaa, mana uusan rabin in xoolihiisa oo dhan uu masaakiinta siiyo. Intuu sii jeestay, ayuu isaga tegay Ciise. Kadib Ciise ayaa ku yidhi xertiisii, sidaas ayay u adag tahay in qof hantiile ah galo boqortooyada Ilaah. Waxaa ka fudud in neef geel ah uu dhex maro cirbad duleelkeed, intuu nin hantiile ah geli lahaa boqortooyada Ilaah iyo jannadiisa. Markay xertii Ciise maqleen warkan, aad ayay u yaabeen, waxayna yidhaahdeen, haddii sidaan ay tahay, yaa badbaadayo? Ciise intuu fiiriyey iyagii ayuu ku yidhi, waxa dadku aysan samayn karin, Ilaah wuu samayn karaa. Butros wuxuu Ciise ku yidhi, wax kasta waan isaga soo tagnay si aan adiga kuu raacno. Waa maxay abaalmarinteenna? Ciise ayaa u jawaabay oo ku yidhi, qof kasta oo ka tegay gurigiisa, walaalihiis, aabbihiis, hooyadiis, carruurtiisa iyo hantidiisa aniga daraadday, wuxuu heli doonaa in ka badan 100 jeer, wuxuuna geli doonaa jannada. Laakiin kuwa ugu soo horreeya way dambayn doonaan, oo kuwa ugu dambeeyana way horrayn doonaan.